Habka ugu muhiimsan ee dib-u-dejinta xeryaha qaxootiga ee Dadaab ayaa muuqaalkan kaga duwan dootiin iyo qodobo kale oo ku saabsan dib-u-dejinta ayaan dul istaagi doonaa iyo boroseska waqtiga iyo qaabka loo maro iyo shuruudaha iyo waxaas ayaan dul istaagi doonaa. Haddii aan ku bilaabo waddanka Mareykanka, waa waddanka caalami ah ee ugu qaadista badan qaxootiyada ku nool caalamka. Boroseskiisna waa uu ka duwan yahay borosesyada kale ee wadamada Yurubta, maadaama waddanka Mareykanka uu yahay waddanka ugu caawinsan ee xagga qaxootiga ee dib-u-dejinta ugu badan oo qaato. Maadaama shuruudahaas waddanka Mareykanka waa la adkeeyey sidii lagu geli lahay. Marka koowaad waa in ay kusoo qaadataa UNHCR. UNHCR markay qofka soo qaadato oo dib-u-dejinta ay siiso ayaa UNHCR taxaanka ay marsiiso. Kadib waa taxaan koowaad oo wejigii labaad markaa soo dhamayso, kadib safaaradda Mareykanka ayaa lagu dirayaa. kadib Mareykanka taxaan ayaa laga qaadaa. taxaankaasoo 3 maalmood socon doono. waxaana lahaa GPA ayaa lahaa ama pre-screening interview sida dadka qaar u yaqaanaan. marka taxaankaas aad maristo oo 3 maalmood mar 2 maalmood ayay qaadan kartaa. kadib waxaa lagu gudbinayaa USCIS ama INS magaca loo yaqaano. markaad marto taasna hadda baryahan waa hore iyada 3 beri ayay ahaan jirtay, laakiin maalmahan dambe iyo sanadii ugu dambeysay waxaa laga dhigay in loo qaado dadka Nairobi ee Nairobi soo maraan. inta Nairobi hadda la bilaabin ka hor Kakuma ayaa dadka loo qaadi jiray, laakiin hadda Nairobi 3 maalmood ayuu soconayaa. 3 maalmood waa 1 maalin soo socod iyo 1 maalin soo socod iyo 1 maalin taxaanka maraa, isku jir waa 3 maalmood. kadib markii qofka uu taxaanka soo dhaw kadib wuxuu sugayaa jawaabtaas 3 bilood ilaa 2 bilood ayay qaadan kartaa. kadib 2 mid ayay midkooda noqon marka in qofkaas uu baaso iyo in qofkaas uu dhaco. hadduu baaso wuu baasi oo gudbayaa caafimaad, hadduu dhacana abiil ayuu qaadan karaa ama mar kale ayuu email waxyaabo dirsan karaa. markuu qaato kadib abiil ayaa haddana waxaa la jiraa caafimaad ayaa lagu yeerayaa. caafimaad markuu maro waxaa la jiray haddana waxaa la marsiin wax lahay CO meesha dambaysa online marka la fiirsada. CO na waxaa lahaa cultural orientation, dhaqanka ee waddanka galista ayuu marayaa. marka dhaqanka waddan galista uu maro oo la marsiiyo kadib oo 3 maalmood ama 4 maalmood ama 2 maalmood intii loo qorsheeyay uu maro RRC African u qaabilsan. marka la marsiiyo kadib waxaa qofku isku diyaarinaya travel inuu safro. safarkiisa ayuu isku diyaarinaya. safarka marka gaaro shuruudo ayaa jira haddana. shuruudahaas oo wili isla dhaqanka ayaa lagu marsiyaa. marka dhaqanka loo sheegayo ayaa lagu marsiyaa waxyaabaha diyaaradda loo geliyahay marka ku safraayo waddankaas Mareykanka markaa gasho, sharcigiisa, nidaamkiisa. hadda dib istaago waxyaabaha loo geliyo qofka safarka inuu qaato waxaa ka mid ah inuu qaato dhar sida kale camera iyo book iyo DVD ama CD wax ka duwan oo loo ogolyahay inuu qaato. laakiin waxyaabaha loo ogolyahay inuu qaadanin waxaa ka mid ah inuu gacmihiisa cilaan saarto lama ogolo, qori lama ogolo, hilib lama ogolo, caleen lama ogolo, bariis lama ogolo, sidoo kale lama ogolo daawooyin oo cayimeen lama ogolo. waxaasoo idil ayaa loo ogolayn. dahab lama ogolo. marka dahabka laakiin waa la ogol yahay, laakiin balse boorsad ayaa lagu shoonayaa. boorsada 2 nooc waay. labada nooc boorsada midna waa 20 kiilo ayaa lagu tagalay, midna 5 kiilo. midka 20 kiilo boorsada weyn waay. dharkii waxaas ku ridani qaybta dambe diyaaradda ama meesha la geliyo ay maamulaan oo ilaa meesha ay ka haraynaysaa waa lagu sii diyaarinaa meesha lagu qaaday ka sii horan. midna waxaa waaye 5 kiilo ka badan lagu qaadi karo. 5 kiilo marka muhiimada waxyaabaha muhiimka ayaa la rabaa ku ridid sida dahabka, lacagta, waxyaabaha yaryar oo aad mar walba u baahanayso, daawooyinka aad laqayso, warqadaha dokumentiga, waxyaabaha dhowta ka maarmeynin ayaad ku ridanaysaa. warqadaas ayaad ku ridanaysaa boorsada yar ee 5 kiilo ah. marka isku jir waa 25 kiilo miisaanka loo baahan yahay. isku jir waxaa loo baahan yahay 20 kiilo waa inta laga rabo inaad safarkaaga lagu ogolyahay. marka sidaas ayaan hadda idin sharaxay. wixii su'aal ama qaybta commentiga ayaad nagu soo qorratiin wixii fikirkiina ah. midda kale aan sheegay waxaa ka mid ah maalmahan dambe waxaa socda caafimaad ayaa socdo iyo sidoo kale orientation ay dhaqanka la marsiinayaa, laakiin wax falaaya hadda ma jiro. laakiin waa la rajeynaya qof Ilaahay uga diro waa la soo dhejin doonaa raayiga. laakiin hadda waqti sax hadda ma hayno wax falaaya ilaa haddana maana maqan. marka insha Allah asxaabta haddii muuqaalkan intaan soo gaarto ku mahadsantahay sida daawashada wax aad ku daawanayso. aad iyo aad ayaan idin mahadcelinayaa taageerada aad muujiseen. marka 24 saac soo socota muuqaalkan waxaan rabaa inaan xiro 7,000 inaan xiro
halaha yaroo dhiman waxaa rabaa inaad dhamaystirtaan fadlan like ta subscribe inoona sheegay muuqaalka si dadban